assalaamu calaykum kusoo dhowow guuleed podcast mar labaad iyo mar saddexaad mowduucan ka horeeyey waxaan ku eegnay bara naftaada. Laba qaybood ayaa maaragteen soo eegnay. Maanta waxaan eegaynaa mowduuca ku xiga ee barnaamijkeenii ama podcastigeenii horumarinta shakhsi ahaaneed. Waxaan nidhi horumarinta shakhsi ahaaneed waa mowduuc aad u ballaadhan oo cutubyo yaryar leh. Marka waxaan ka soo qaadan doonaa qaybaha ugu muhiimsan. Cutubkii ugu horeeyey wuxuu ahaa bara naftaada, taasoo qofka u suurta gelinaysa tallaabo intuuna qaadin inuu marka hore isagu naftiisa barto. Marka waxaan kugula talin lahaa fiidiyoga kan ka horeeyey insha Allah inaad daawato. Maanta mowduuceenu wuxuu noqon doonaa kalsoonida. Runaantii kalsoonidu waa shay muhiima dhan walbana looga baahan yahay in la iska dhiso. Kalsoonida nafta ayaa ah furaha albaabada u fura riyooyinkeenna, waana aaminsanaanta qofku shakhsiyaddiisa sidoo kale inuu awood u leeyahay inuu bedelo caqabadaha nolosha iyo inuu awood u leeyahay gaadhitaanka himilooyinkiisa. Kalsoonidu waa aasaaska horumarka shakhsi ahaaneed, mid xirfadeed, iyo sidoo kale waa mid inoo horseedi karta in aan xidhiidh wanaagsan samayno. Marka ay timaado shaqada, marka ay timaado isfahanka bulshooyinka kala duwan ee waqti xaadirka aad la nooshahay, kalsoonidu markaa waa shay aad u muhiima marka ay timaado horumarinta shakhsi ahaaneed. Tusaale, marka ay timaado wada shaqaynta bulshooyinka caalamka ama kuwa aad la nooshahay, waxaa laga maarmaana inaad yeelato shakhsiyad ku dheehan kalsooni fara badan, taasoo noqon karta marka ay timaado ganacsiga ama aqoon isweydaarsiga. Run ahaantii dadka isku kalsooni maaha oo keliya kuwa inta badan dhoola caddeeya iyaga oo ay ku sugan yihiin xaalado adag, laakiin sidoo kale waxay si fudud uga gudbaan dhibaatooyinka nolosha la soo wajaha. Marka waxaan odhan karaa qofka isku kalsooni waa qof aaminsan caqabad walba oo la soo derista noloshiisa in uu ka gudbi karo, isagoo kalsoonidiisa aaminsan iyo waxqabadkiisa iyo waxtarkiisa. Marka kalsoonida naftu waa muhiim, waxayna muhiim u tahay kobaca shakhsi ahaaneed iyo sidoo kale guusha horumarka nolosha. Kalsoonidu waxay inoo oggolaanaysaa inaad naftaada la tartanto, halis geliso, ood riisikadana qaadato si aad fursad cusub oo noloshaada aad u wajahdo. Marka aad riisi ka qaadato ood rabto inaad wajahdo nolol cusub ama project cusub, waxaa muhiima inaad rumaysnaato naftaada ood weliba aad ugu kalsoonaato si aad uga gudubto caqabadaha nolosha. Sidoo kale ogow, kalsoonida naftu waa sirta guusha. Qofka isku kalsooni, si kastoo caqabado ula soo derisaan, mar walba wuxuu noqdaa markaa qof ku guulaysta dhinacyo fara badan ee nolosha, hadday tahay waxbarashada, hadday tahay ganacsiga, iyo sidoo kale nolosha kale caadiga. Xataa xidhiidhka, qofka isku kalsooni wuxuu noqon karaa ama awood u yeelan karaa in uu xoojiyo xidhiidhku dadka la leeyahay ama xidhiidhka uu la leeyahay qofka ay nolosha wadaagayaan. Barnaamijka ku xiga wuxuu noqon doonaa insha Allah qaybta horumarinta hadalka, taasoo iyaduna muhiim ah oo loo baahan yahay qofku in uu xoojiyo ama iska dhiso habka loola hadlo dadka iyo habka loo dhagaysto, taasoo iyaduna u horseedaysa qofka in uu ku guulaysto dhinacyo badan. Aadan baan u eegi doonaa qaybta dambe. Wixii feedbacka qaybta commentiga igula wadaag. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay.